السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان asxaabteeda qaaliga jeclay janalkay ku xirnaad baa idin salaamaya walaashin saacadeen la soo noqdo wanaagsan maalin wanaagsan waqti walba idinto wanaagsan waan idinkaga mahadcelinaa sida quruxda badan dukumeentiyada ducadii dhiirigelinta isku jira ay soo dirtiin sida quruxda badan fiidiyoodii u leegreysiin waan idinkaga mahadcelinaya haddii ay tahay markii kuugu horeysay videogana daawanayso waxa ka codsanayna insha Allah haddii aad ka heshay videoga inaad noo leegreysid subscribe gambaleelka furtisa oo noqo daawadeena koowaad aad baad u mahadsantahay maanta waxaa idin wadaa cream iyo boomatidiisa iswato oo whitening leh fair and soft waa boomatidiisa oo cream iyo asoo whitening cream ayaa maanta idin wadaa waxaana loogu talagalay dadka nabraha leh haarta leh madmadowga leh waxa wajiga dhan leh aa loogu talagalay haddii aad groupkaas ka mid tahay insha Allah waa kusoo dhaweyneynaa oo videoga dhameyso si aad insha Allah uga bogatid mar badana videoga waxaa waaye dhaxdada uga tagtay ma fahmaysid waxa ka hadlaayo videoga inaad dhameysatid ayaa ka qurux badan. It is for free ani la kaftama it is for free dear one day waxaa waaye iyo 2 days 3 days waxa firsid waxa waaye it's free ma fahantay so muhiim waxa ku videoga wuxuu ka hadlaynaa fahantid anigana waxa waaye wixii markaas ugu talagalay inaad ka faa'iidin haddana aadna ka faa'iidin Soomaa hadda wixii ugu talagalay ka faa'iidin anigana maxaa la dhihi jiray ii sheeg maxaa la oo aan ka helo ajir ka helo oo idinkani maxaa la dhihi jiray waxa ugu talagasheen ugu caafimaadin iga badan halahaas ma fahanteen gabdho so waxaa raba inaan idin sheego waxay tahay dadka loogu talagalay dadka isticmaalayo dadka waxaa waaye intaas oo dhan oo isku haysto madow isku haysto haar isku haysto madow waxaa ka wadaa nabraha madowga ee ka tageen nabro kaleeta waxaa soo dhan hada saliid tahay hada oil tahay hada dry tahay also dadka badana ee ka soo baxaan nabraha ay yihiin dadka normalka iyo dadka oilka badana ka soo baxaan dad dry dadka dryga haarta ka soo baxdo fahamtay haddii aad haar ka soo baxdo wajigaagu qalalan yahay taasa ku taasa cadan kuugu filanbo haddii maxaa la dhihi jiray oo wajigaaga maxaa la dhihi jiray nabar leeyahayne waa oil skin tahay so halaas ina fahantaa muhiim okay creamka marka whitening ma leeyahay dadka macdeena soo loo isticmaalaa waxyaalahaas oo dhan horta nabar creamka waxaa loogu talagalay midka creamka waa boomatada maahanaya creamka caadiga waxaa loogu talagalay inuu nabrihi ka baabi'iyo waxaa loogu talagalay inuu laalaabkii skinkaaga brighten ma sha Allah ku siiyo oo wajigana ku qurxiyo oo whitening kaaliska arag ku siiyo laakiin mostly ayagoo whitening na siina haddana waxaa arkaynaa wajigeena inuu qayran yahay wajigeena inuu nabro leeyahay qof waxaa arkay wajigiisa inuu cad yahay nabro madmadowna way ku yaalaan ma fahanteen wajiga wax ka qurux badan ma leh inuu isku ekaado haddii aad danaynays creamkan zaid oo nabraha ugu fiican yahay iyo haarta iyo madowga wajiga ku haro dhan aad ugu fiican yahay wajigaaga nadiif uu kaaga dhigayaa sidoo kale waxaa ku soo hartay gabdhaha oo mostly weydiyaan maalmahan dhan waana ka hadlay arintaas hadee ma ogi inaa hadda adigu nagu cusub tahay oo kugu cusub yahay videogan hadda kugu cusub yahay daawanaysid ma ogi waxaa idin dhahay daawada marka isticmaalaysiin waa inaa maalintii isticmaashiin aad ugu fiican tahay sida waqtiga kaleeto maalintii daawada marka isticmaashid waxaa waaye maskiyadaada iyo wixii aadna waa iska marsanay maskigana saa hore idin kugu sheegay creamka after 30 minutes marsan kartiin after 30 minutes marka maskiga marsatid ayaa marsanaysaa maxaa la dhihi jiray creamka markuu kugu qalalo after 30 minutes maskiga ka dul marsan kartaa ama maskigaaga gooniya u marsanaysaa ma fahamtay laakiin hadaa wixii inta isku wada qastid ama gacanta ku wada qasatid ama markaas u marsatid ba soo kugu qalala ka dul marsatid maskigana wax ma ka faa'iideysid oo waxa waaye uu ka qasaaray wajigaagina wuxuu ka faa'iidaa malahan creamkina sidoo kale uu ka qasaaro waxaad ka faa'iideysid malahan ma fahamtay soo muhiimada waxa ku eebis oo ku muhiim ah inaad fahantid waxa farqiga u dhaxeeyo ina maski kastana ma ahan maskiyada waxay aad ka faa'iideysiin oo moisturizer ka helaysiin oo maxaa la jirjirkiina soft ka dhigaayo oo glowing idin siinaya marsada laakiin mask kasta hadaad waa marsana adigana wax aad ka faa'iideysta beeraatay ma jirto ma fahanteen soo muhiimada waxa ku in maxaa la jiray maskigaagii wax ku kordhinayo creamkaagina wax ka faa'iideysid gabdho
soo marka pointigeygu wuxuu yahay kareemka day cream isticmaaleysaa maalintii isticmaaleysaa oo day cream ama isticmaaleysaa maskigadaadana waqti ku gooniya marsane gabdhaha quruxda badan ee commentiyada ii soo qoro oo mar walba han ay dhahan saacadiyo daawada badan aan noo soo gelisid waa ku caafimaadna waana ka helnaa sidii gabadha ay dhihi jirta gaduudka iyo waxyaalahaasoo dhan waa ka fiicnaada commentigaas shalay iigu horeysay aada iyo aada ugu faraxsanahay waana idinkaga mahadcelinaa dhammaantiina markastoo commenti soo qortiin aan niyada ii degto sababkaas wax kalena ma ahan waxaa ku qanacsantihiin hadaaba waxaaba ani ilaahay waafajiye alxamdu shukri mafahanteen alxamdu shukri waa waxaa idinku qanacsantihiin hadduu ani ilaahay aqoonteeda siiye oo idinkeedii kaga faa'iidaya waa nimco mafahanteen soo nimcada aadi haysatidna dadaa wada haysanin waa rajeynaa insha allah inta idinka iga faa'iidiin inaad dadka kaleetan u faa'iideysin insha allah oo sida quruxda badan commentiyada iskugu soo gashiin inaad dadka walaalihiin ugu sheegareysin xataa hadaa whatsappkaaga intaa ku sheegareysid aa saaratid dadka contactiska kugu jiro gabdho laazim ay kugu jiraan way arkayaan fahamte soo muhiimada waxaa ku in walaashaa ka faa'iido waxaad ka faa'iiday soo insha allah kareemkaana waxaa way madowga iyo haarta iyo nabraha waxaa ku loogama sheekeyn karo maasha allah tabaarakallah waa yaala moogaanin aad baan u mahadsantiin daawashada videogan waa idinkaga mahadcelinaa meel kastoo aad joogtiin waxaa idin leeyahay maalinta idin wacnaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu